guuxa caasimada Soomaaliya ee Muqdisho dagaal ayaa loo biratumanaya dib u dhaca doorashada oo lagu daray boobka iyo bililaqada kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka 11aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxay horseeday xiisad siyaasadeed xilli kasta xasarad iyo gacan ka hadal isku rogi karta mucaaradku waxay ku dhawaaqeen in aysan qayb ka ahayn hanaanka boobka ee hadda wax ku socdaan waxayna iclaamiyeen shir looga tashanayo aayaha dalka si looga samatabaxo buuqa ka dhashay idlaanshaha muddo sharciyeedkii hay'adaha dawladda guuxa siyaasadeed ee caasimada ka jira wuxuu horseeday in daneeyaasha siyaasadda iyo inta badan xubnaha mucaaradka ay ku aruuraan degmada Wadajir iyo Hotel Jazeera halkaasi oo la rumaysan yahay in ay ugu amni roon tahay magaalada sida aan ogaanay isla markaasina aanu hore u baahinay waxaa socda abaabul xoogan oo dib loogu soo celinayo ciidankii badbaado qaran ee dhamaadkii Abriil ka hor tagay muddo kordhintii sharci darrada ahayd ee farmaajo sameystay isla markaasina xalaaleeyay gudoomiyihii hore ee golaha shacabka ee Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan farmaajo iyo Fahad Yaasiin ayaa sugaya in maalmaha soo socda ay soo gaaraan 25 duulimaad oo mid kasta uu sido 200 oo kamid ah dhalinyaradii qaarkood 3 sano ka hor loo qaaday dalka Eritrea waa 5,000 oo asgari sidoo kale Fahad Yaasiin Xaaji Daahir wuxuu abaabul xoogan ka dhex wadaa ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan Gorgor halka booliiska gaarka ee Haramcad iyo ururada kale ee Waran iyo Duufaan oo nisa hoostaga uu kordhiyay tiradooda bishii la soo dhaafay farmaajo wuxuu garab ka helayaa dawladaha Qatar, Eritrea, Ethiopia iyo Turkiga oo ay u sii dheer yihiin Shiinaha iyo Ruushka wuxuuna isku diyaarinayaa inuu xoog ciidan ku sii joogo kursiga ugu sareeya dalka musharaxiinta ayaa la filayaa in ay dhawaan dhisaan gole qaran oo leh guddi amni iyo ciidan gaar ah kaasi oo dalka ka qabta doorasho la isla ogol yahay waana qorshe uu farmaajo doonayo in uusan hirgelin isla markaana uu u daadinayo dhiigga reer Muqdisho guuxa ciidan gurashada ee ka jira Muqdisho wuxuu u muuqdaa in mar kale fooda la isdari doono kooradhamaadka sanadka cusub waxaana la filayaa in markan haddii Muqdisho martigeliso dagaal kale uu si weyn kaga gedisnaan doono midkii Abriil ee maalmaha yar socday geeska kalena daawadayaal hadeen eegno madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Khayre ayaa ka hor yimid qorshaha mucaaradka golaha midowga musharaxiinta mucaaradka Soomaaliya ayaa hore u qaadacay natiijada doorashada golaha shacabka kadib markii la baalmaray dhammaan shuruudihii hufnaanta iyo daahfurnaanta ayay 10 bisha 12aad December aynu ku guda jirno 2021 soo bandhigeen sida lagu sixi karo habraaca doorashada waxayna ku baaqeen in la isugu yimaado shir lagu saxayo khilaafka ka taagan doorashada hayeeshee ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble iyo hoggaanka dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa dhigaha ka fureystay baaqyada ka soo baxay golaha mucaaradka waxa ay go'aansadeen in uu sidii hore ku sii socdo hanaanka doorashada taasi oo sababtay in midowga musharaxiinta mucaaradka Soomaaliya ku dhawaaqaan shirweyne wada tashi qaran sida aan xogta ku helayno isla markaasina ay noo xaqiijiyeen ila waxgala xubno muhiim ah oo miisaan culus ku dhaxlay musharaxiinta madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed thumma wallahi iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa ka hor yimid talaabada uu mucaaradku ku doonayo in uu caasimada uga qabto shir waxgalka bulshada ay isugu imaanayaan sida aan xogta ku helayno isla markaasina aanu hore u baahinay Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Soomaaliya ayaa dalka ka maqan ku dhawaad 50 cisho wax lug ahna kuma lahayn dhammaan war-saxaafadeedyadii dhawaa ee musharaxiinta wuxuu qanaaco xoogan ka muujiyay 5 kursi ee lagu boobay Dhuusamareeb wuxuuna safar ku tagay Qatar koor inta uusan u sii gudbin Norway madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa dhankiisa dalka ka baxay Sabtigi wuxuuna maalmihii la soo dhaafay si weyn kaga gaabsaday guuxa mucaaradka iyo guud ahaan bulshada caasimada oo ah in dhidibada loo taago golo qaran oo hor istaaga boobka doorashada dalkana ka qabta xasaradaha siyaasadeed ee ku soo foole sida ay xoguhu cadeynayaan Shariif iyo Khayre waxa ay si guud kaga soo horjeedaan in dib loo soo celiyo badbaado qaran waxa ay diidan yihiin in dib loogu laabto doorashada kuraastii la boobay mana ogola dhismaha gole ay garhayeen ka yihiin musharaxiinta
xubnaha kale waxa ay xalay ku baaqeen shirweyne wadatashi qaran oo ay isugu imaanayaan ahlu xalli wal caqdiga bulshada Soomaaliyeed waxayna sheegeen in ay magacaabayaan guddiga qabanqaabada shirweynaha iyo guddiga amniga shirweynaha taasi oo ka dhigan in mucaaradku u kala jabay laba garab. Sheekh Shariif Sheekh Axmed madaxweynihii hore ee Soomaaliya wuxuu dhamaadkii bishii Abriil iyo bilowgii bishii Abriil sanadkan dhowr kulan oo qarsoodi ah la qaatay Fahad Yaasiin kaasi oo ka xalmariyay gabood falo uu hore ugu geystay halka ay qadka taleefanka ku wada hadleen Farmaajo taasi oo keentay inuu dalka ka baxo xilligii uu socday abaabulkii badbaado qaran. nuxurka wararka waxa ay mid kamid ah taliyayaashii hore ee Nisa ka soo xigatay in xilligaasi uu Sheekh Shariif Sheekh Axmed dacwo ka dhana madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo hogaamiye Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame u gudbiyay wakiilada beesha caalamka ee xalana jooga isagoo ku eedeeyay inay yihiin dagaal oogayaal soona jeediyay in loo aqoonsado qaswadayaal. Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa la xasuustaa xilligii uu ahaa gudoomiyihii guddiga fulinta golihii maxaakiimta in uu bilowgii 2007 isku dhiibay deegaanka Hulugo oo ku yaala xadka ay wadaagaan Kenya iyo Soomaaliya saacado kadibna la geeyay Nairobi taas oo lagu tilmaamay khiyaano uu ku sameeyay golihii maxaakiimta. Khayre dhankiisa waa shakhsiga waqtiga ugu badan la soo shaqeeyay Farmaajo iyo Fahad Yaasiin waxaana la rumaysan yahay inaysan jirin kala aragti duwanaansho buuran oo u dhaxaysa isaga iyo kooxda qadar taageerto ee madaxtooyada sharci darada ku joogta.